maanta ugu darneedu iga nihiiseeba qayladii kaga nihiisay maanta ugu darantee iga nihiis laakiin ka gudub anigii shantii dhabanka waxaa farta la saartay mu garanaysa wax la tiraahdo garoonkii hawaali ma garoonkii hawaalooy mise haasidkii waa la soo dhawaatay makarona virus ba ma makaronadii la uraysay ba makarona wax la tiraa virus wixii ku magashayba oo ku magashay garanay inaad irmaana dad ku sheegay mise adigu u sheegi adiga idihaaraandaada dheer laga baxsanaysa bay wax la tiraa coronavirus ba adoonkii soo gashay kii shiinada waa ka soo bilaabantay shiinadii 3 macno ama 2 macno waa ugu dhacday macno kood atawaynader makana waydin sheegta misa wari minku soo tii ku eryanayna anaga malfi ku eryanayni hada wallahi malfi intu ku eryatu gaari waydiibu intu ku tuurtay ila dhinshaaro taanigi isha intu saa u dabta dhinshaaro ma ku sii deysay halka madaxii ka jirtay waxaan naga qabsada inaad reedi horta diigan maxaana baray iska daabal wixii wari idinkiina iska dul yara gaado walaal haasidunu iyaaraysa u arkaysay iska dul gaado kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal lahaantiinba meel kasta oo naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkii dhalin wadaag oo toddobaad kaste si toos ah uga daawataan True Cable TV barnaamijka toddobaadkan waxa inoo martiya Suhayb Sancho Suhayb inteeda badan waxa shita dad badan oo magaciisa aan oo aqoonin marka Suhayb waan soo dhaweynaa marka ugu horeysa barnaamijka dhalin wadaag ee True Cable TV ay horta runaantii aad baan u dhawahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin martiqaadka quruxda badan leh iyo ku soo casuunkaba aadna waan ugu mahadcelinayaa bahda True Cable haday noqoto hawlwadeenadii maamulka iyo sidoo kale shaqaalaha aad baan u salaamay dhamaantood aadna afkii ku salaam afkii way salaam afkii barakeysna ku salaam horta tii True Cable way iska mahadsantahay way fiicantahay ma wadaagtay way hadalta dhalin wadaag wax noocaas weedo taana waa soo dhaweynaysa waa maankii barnaamijkan iwanka aad baad u mahadsantahay adiga intina noogu tuuray Suhaybo markii ugu horeysay social media soo gashay sanadkee bay tarta waxay ahayd 19 dabayaaqadiisii marka daama ay dabayaaqadiisii ahayd waxaan oran karnaa unda 20 bas kale aad iyo aad waa tahay xilligaas soo gashay waxaad ku soo gashay filter waxaad ku matali jirtay magac la yiraahdo Cali Oromo waxaad ku matali jirtay oo kale ku jiri jirtay af kale bal inta anigii daawadaasha warbixin kooban naga saarta afka sidaad u baragtay muddada kugu qaadato horta nooga bilow horta ku rafan maayo kuna galgalan maayo laakiin isku dayeen soo koobo waxay ahayd waqti Ramadaan Ramadaan laga baxo salaadii Eid soo tukanay kadib sawirkii yaraan siri gal soo dhig maxay ahayd statistics wax noocaas oo dad fara badan birigaas ka xidhnaaye ay waxa dhacday dadka xaqan ugu talagalay ku raado Eid Mubarak ayaa saadan Eid Mubarak oo dhan sawirkii soo dhigay aan soo tukaday baaxagal ciidkii noo soo waliga horri maana halkaas qabanna jeebadeedana eegayada bisaarada ciil dabeeto waxa dhacday anoo markaas Snapchat-ka ku jiro oo Snapchat-kuna xulaa filtro badan oo mid san weyn inta sameynaysa iyo mid afku weynaanay waxba ku jiray kadib kiisan kamid ka soo baxay waan qoslay marka afkaygan waxa saarneed anoo laajadan yar luuqadan isaga yar hadlayo oo Oromada markay af Soomaaliga baranayaan ayaa uu yar dhibaa moogto oo yar jajabiyaan marka anoo laajadooda ku haysta oo aad ugu qoslay waxa dhacday dabeeto anoo sidii ugu hadlaya ayaa kadib fiidiyoogii ma filterkii bay qabtay kadib waxaan isku daynaa iskaga duubo waan duubay anigii baa qosle ku yar waxaan isku haynay eeg taagna anoo qosle saacad leeyahay kadib fiidiyoogii baan waxaan isku daynaa soo dhigo statuska waa la wada dhig kadib horta ma rabin manaan jeclaynan muuqaalkayga muujiga sax soo bandhigo dadka hamigooda ku jira ama maxay ahayd rabeen caan noqdaan ama social media soo galaan ma ahayno maalin qora habeen qora kuma seexan caan bad noqonaysa caan noqo isku mana deyin balse laakiin wadabooday ku dhiibtay say hawshii u socotay oo aan xitaa jeclayn wajiga soo bandhigo ay wax dhacday inay deen noqoto markii dambe wiilamiis xardil leeyahay warayskii ugu horeeyay qaado dayax show laga baahiyo kadib haddana markii dambe ku xigtay filimaantan isku dayay inaan jilo oo qoladan filmis aan filimaan sameynay kadib adigu hawshu waxay sidoo socoto waday ilaa maanta halka taagan markii aad sameysay ayuun baa la dago markaas la wareejiyo social media sidoo kale clipki
dad badan oo caan oo aan garanayo oo wariyaal ku jiraan jilayaal waaweyn ku jiraan ayaan ku xidh anoo page-kooda ku xidhnaa ayaan baan arkay page-koodii la soo dhigay aad baa runtii looga helay aad buu dadka ugu qosliyey kadib anigoo ugu talagalay waxaan iska sii wado ayaa waxa soo dhacay baryaha soo baxay ayaami la lahaa gorgor baa ciyaalka yar qaadanaya gorgorkii madana muuqaalka laga sameeyey haddana heesu qamar waka haddana heesu qamar sugaan leeban bedelayo dhaxama ayaamahana soo gelay la dhaafiligi kululeed kuleelka dhahaan uu ku higtay waka singalkii baad gashay waka kii singal bacdaye go-yaasha kuwii jecleed uu sheeg aligeeno aniga de aligeegiyo inuu bustadii doonato ilayn dhahaan uu jirtay kada waxa markaa heestaasina la dhaafiligi adkaa maxay farxad baa ku xigay heesta saas ahayd way cusbeed bariyaha inay jirtaan malayna laakiin la axmaa soo gelay waan la galan way bedelantayba kiliibkiina magaalada qos kadib markaa waxaa baxday in magacba male qofkan sanka weynle horamada iska dhigaya magacba male kadib waxaan sheegay dad sahiibkaaga ku adkaysato page-ka sahiib ku samaysato waa lagu fahmi magac u bixi marka oromaduna markay de maxay haday badankoodu cali iyo cabdi iyo asmaan ibrahim magacyadaas la baxanay karayaan de cali baan ku dul qoray meeshii caligii adigu baa samaystay ha Instagram aan samaystay markii dambena YouTube baa ku xigay adigu inta wixii ku xigayna waxa ahayd in magdana say waraysiga hore leega qaado waliba anigoon raali ka yarahayn oo de aygu yaradkeedina wajigayga dadka adana markii ku xigtay way sii furfurtay markii dib laakiin wixii ku garanay inay saxiibta xaafada ku ila joogay ayaa bana waxaana daawanay oo lahaan iyo daahan halka ku garanaysa iyo garanka yar maalin walba de shakina u jiray laakiin badan xaafadada in way ogeyd haddana maxay ahayd arrimahaas horta iska badnaayeen laakiin dadka badankoodu ma xitaa kuwaas ku galaaskayn waqtigana fanfoor baan ka baxay dadka xitaa kuwaas ku galaaskayn imay ogeyn mar dambe ogaadeen fanfoorkii ka dhameeyeen qalin jabinay ay yiraahdeen war ma adigu waxa wixii war baa la jaay waxba iska dhigdhigay markii aad Suhayb dadkiiga ku aqaaneen aad caligii la soo baxday maxaa feedback ugu badan dadka kaaga soo noqdeen bulshada muxuu ahaa wuxuu ahaa horta meel ay wax igu soo gudbiyaan ma haynin meel ay igala soo xiriiraan meel Instagram baa ugu dhawaan Instagram-kana badan ama gali jiray YouTube-kan ku badnaa waxa jirtay inay comment-yada ku soo qoraan noo soo badi ruwaayada soo metal laakiin dadku waxa ugu badan ay aad u xiiseynayeen oo ciil ka hayayba yaa Soomaalida wax laga qariyo ciil baa ka hay wajigayga inay arkaan arka bay doonayaan xitaa qaar badan oo YouTube maxay ahayd warbixiniga sameeyay aanan ogeyn ayaa jiro intay ku soo dul qoraan thumbnail-kii ciwaanka cali oramo wajigiisii soo bandhigay cali oramo wajigiisii la soo helay cali oramo ay dad badan de ko yaacayaan say wajigan u arkaan marka taasina ayaamaha asna way jireen marka caliyo maga aan idhaahday hadalkan af oromada ee wadanka jaarka lagala hadlo ma Ethiopia aad u tagto halkaas aad ka soo baratay mise waa wax halkan aad ka barato may waxay ahayd waqtiga waxa jiray iska ciyaar iskuul baan ahaa form ku jiray waxa jiray wiil cabdi la raado isagoo oroma caadi ah Ethiopian caadi ah kadib wuxuu ilaalin jiray abuu badana uu ka shaqo gal jiray guri jaarkeega oo dabaqa gurigaas badana shaqadiisu ay ahayd kadib duhurkii uu qaadkiisa markuu ka soo qaato wadada soo maro waxa jiray gurigeyga geedka hor yaalo hor fadhiisto ee dhalinyarada xaafadu fadhiisto la isaga sheekaysto marka duhurkii mana saacan jirin ma waxa la madawaaday aduu inankaas aan soo mari jiray wiil wuxuu iska furfuran bashaasha wada qosala naga qosliyoha kadib intuu nagu soo leexdaa maan soo leexino ay waxoogaan ay fadhi jiray duhurkiina xaafadu iska seexdaan oo shaqo sawsi badan meeyo hadii xitaa wax dhacaan de gurigii uu dhow yahay kadib halkaas isaga sheekaysan jirnay oo de isaga la jaddi waa ka dhab oo Soomaaligu ka adag yahay ha kadib anaguna san ugu qoslino isaguna naga qoslinayo xitaa naga muuqaloon jiray ayaa laba dhalinyaro ka barto la yiraahdo Cabdifataax iyo Khadar Khan aad xagan uga salaamay hadii muuqaalkan arkeen kadib aniguna waxaan isku dayay inaan ka daba barto oo la keenay markii dambe waan ka daba waan bartay xitaa kubaduna la ciyaar jiray khamiisaha jimcaha markaan ala midayno kale la ciyaar jiray kadib de adigu wixii sidii iska ahaataba aan dad yaro kooban iskaga tuurtuura hadalkaas oo aan marka qaar isaga hadlay qosli jireen ayuunba cishada Ramadaan taa marka Ramadaantaas dhamaatay iida la tukaday Ramadaantii iida la tukaday ay maalinimadeedii anba afka Ilaahay ku baagayay dadkaas garansay aan soo dhigay media ku baahiyo maalintaas ku baagantay laakiin waxaan Ethiopia u tagay ama waxaan meel kale ka soo bartay Ethiopia kuma dhalan weligii waan tagay laakiin inta qaar bay Ethiopia ku mooday wallahi xagasi ku tirinay badan dadka markaan is aragno waxay ugu dhahdaan ugu badan wax weeyaan wallahi birgi ma garanaysa oroma caadi ku mooday
maalintaan codkaaga caadiga maqlo maan yaabayba madaxa ay ballaadhay madax muxuu ku ballaadhay ma biyaha kaa galay no waxaa jirta imika inamo badan oo imika lahjadii bartay oo social mediaha imika lahjadii wareejiya marka lahjadu waxay noqotay mid aad sii kordhiseen oo dadkii barteen baynu odhan karnaa horta wallaahi waxaa jiray dad la keeni karaya iyo markay u hadlaan barteeda dhigaya aniga xitaa dadka qaar markaan kulano yaqaana afkii igula hadlayo anigii iga qoslinay anuu bilaada maanta waan iska qoslaya waqti waan qosli karaya anigii iga qoslinay laakiin waxaa jirtay way jiraan dadkaan soo arkay dad badan oo isku dayay inay soo galaan iyo dad badan oo dadka badankoodu wax isku meeyay inay soo galaan ama ma xiiseenin laakiin lahjadana ku hadlay maadaama aan la keenay ayaan baan igu taageereen yiraahdeen waxaan kula fahansanay wallahi laakiin barteeda dhigtay xagga la keenina laakiin xagga badana actingka jiliinka ma aragtay ayaa aan kaga yara duwanaaday xagga jiliinka aan raacinayo ereyadii aan isticmaalayo dadka aan garanaysa qosolkii u dhex raacinayo ayaa kaga yara duwanaaday laakiin lahjadan dad badan way garanayaan aad markaan inta kaga imaano cali iyo afkiisi kale xaaladiisi kale aanu soo gudubno Suhail Sancho waxa weeyaan ninka waa youtuber waa jilaa waxa weeyaan waa arrimo badan yahay marka bal waxaad noogu horeysiisaa jiliinka xagga jiliinka markaynu galno waxaad samaysaa riwaayado badan marka riwaayadaha aad samaysaan maxaad inta badan ka batashaa marka cali laga wada imaado cali marka laga imaado Suhail ahaan horta wallahi sagalay aad u maasantay waa su'aal wanaagsan balse laakiin Suhail ahaan horta way jiraan riwaayado aan wacdi يعني maxay ahayd wacyi gelin aan sameeynay oo aan medelay way jireen haday noqoto youtuber caan ama jilayaal caan aan la soo metelo oo kala qayb qaatay wacyi gelinta badanaa laakiin haday noqoto film marka laga hadlayo ama jilin way jiraan waxyaabo badan ku fiicanay khaayinimada isku garanaysa waxyaabo noocaas ah aad iyo xaga khaayinimadu baa lagu dhiibaa adigu meelahaas la soo doontaana waxaan ku raada nimada actor iga dhigtaan laakiin qaab ahaan actor ahaan waxa jira actorku qaab looga baahan inuu yeesho oo kale inuu qaabkiisa iyo stylekiisa iyo wajigiisa waxaas ay yar haadaan wax yar dhisdhisan laakiin markay noqoto xagga kale adoo xagga qaynimada buuq siraadnimada iyo qaylada iyo waxaas halkaas ay noqotay waxa jirtay filimkii wacdiye waane la waday inaad ku jirto qayb ka ahayd marka filimkaas meega mid ay ku soo xusheen buha mise mid adigu wad iskeento tirwan ka qayb qaadanayo buha filimka wacdiye waano horta badana anu way igu yartahay inaan awoodna u malihi dabeecadan isku arkay weeyaan in meel u tago aan iraahdo hawsha aan galno ama hawsha samee ama intaan meel tagaan iraahdo maxay ahayd hawsha ii sameeya aad buu adag tahay inaan iraahdo balse laakiin agaasimaha ayaa ila soo xiriiray wuxuu filimkaas la bilaabaya oo kugu soo daray afka Ramadan waad ku gashay afka Ramadan waxaan rabnaa inaad qaybta ka gasho waxaan okay dhimbala waa caadi oo galinaa ma koori waana ka heshiinay filimkan sidii uu ku bilaabmay aad iyo imka xataa youtuber dad badan wareysata xagga saxaafadda way dacwo tahay youtuberada horta daxweed ridbood baa laga qoraya iyagoo aan saxaafadii soo baran ayay doonayeen inay dad wareystaan oo shaqadeeda noogu yimaadaan arrinka maxaad ka leedahay maadaama aad youtuber tahay horta warna way jirtaa inaan dad isku dayana wareysto saxaafadda horta ma baran meel xitaa wiligeed lagu sheegay wiligeed ma istaagin ma yihi ma jeceshay inaad baratid waanigan kule horta saxaafadda iyo jiliinka iyo fanaanimadu waa isku dhinacan bay isku wadayiin marka si loo eego kamaradu bay wuxuu hor istaagayaan waa mihnadu laakiin wiligeed niyadeeda ma gelin kamarada hor istaag kamarada laga duubo sawiraan daqiiq ku galaha laakiin kamarad way igu adkay marka saxaafaddan waxaan oran karaa niyadeeda ma soo gelin mana isku daynaan barto laakiin jilayaal wax nala jira oo imikadan xitaa jooga way jiraan oo saxaafadda kaba soo qalin jabiyayba oo dad badan marka laakiin anu meehi qof saxaafadda soo bartay qof saxaafadda wax ka yaqaan shuruucdeeda waxba kama yaqaano hal iga raali ahaada wala xitaa hadan ku gafo laakiin wixii buuqi qayliya hadala ilaahay way baray saxaafadda waxa tiraadeen hadalada fudfud dadka way weydiisaa way ku tuurtaa diyaarinka maxad ka leedahay horta wallahi nin biniku ka indhadig horta wax ma leeyahay bara indhadagnimada waxaad arkaysaa nin suxufi ama wariye ah oo siyaasi weyn ama qof macquula su'aal khatar weydiinay siyaasigii weynaa ama qofkii khatarta ahaa wariyihii yaraa ma oran karo naga tagayo garaas ma oran karo inkastoo xitaa qaar aan arkayba kaba xanaajiyba
suxufiyiintu horta runtii waxaa la odhan karaa wallahi waa dadka ugu dulqaadka badan le weeye uguna ma garanaysaa dhaqanka wanaagsan kolley waxaan odhan karaa waxa lagu soo baray xagga saxaafadda lagu soo baray saxaafadda waxaan ka mid tahay waa xagga fikrad ahaan ma arkin laakiin waan u malaynayaa marka wallahi horta aad bay dulqaadka malaabin wallahi laakiin de waa barasho qof bilaa dulqaad saxaafadda galay dulqaad ku soo baranaya waxaan intii aad ku dhalatay markaad dhaafto barasha jirta waxaan waana barataa marka hore dad wixii baratana bas badi adaa cid walba ka adag marka waa ka sax imika waxa tahay qof baraha bulshada laga aqaano oo dadku ay daawadaan maadaama dadku ku daawanayaan oo wax soo gudbin kartid maxaad ugu jeceshay inaad bulshada u soo gudbisid aad u sheegto wacdi iyo waanaba horta wallahi markaan dhinac ka eego haleelkaygana eego waxaa jirta horta dhalinyar aad u jecel inay wax soo gudbiyaan wacdiga ka hadlaan wacyigelinta ka hadlaan bulshada isku day wax kusoo kordhiyaan horta sabankana ku jirnaa seven aakhir weeyaan waa sabankii u dambeeyey cidii nagama dambayso calaamadii yawmal qiyaamahee nabigeena calayhi salaatu wasalaam sheegayna horta qaar badan baaba iska cadba marka tii aakhiradaada inaad ka raacato ee dantaada qof kastana inta tan ku baraarujinaya waa taasun wixii adduunyada uu ka joogo uu heli kara ha helo laakiin aakhiradiisa inuu marka ugu horse ku dadaalo oo uu ilaahay u noqdo ayaan kula talin lahaa waa talabaad dadkan horta la wacyi gelinaya iyagoo maskax bay leeyihiin iyo aqli qof haddii uu khalad ku aragto saaxiibtiin ama kuu dhow adigoo runta u sheego ku dhaw saaxiib waxaan kuma fiicna mana wanaagsanay taada ka raaco sidan si isu dhaan aakhira dambayso la isku goynayo intaasaaba kaaga badan laakiin markaad ugu talagelaysa inaad wacyigelin usoo gudbiso ma xuma taasina aad bay wanaagsan tahay badanaana dawladeenu marka la leeyahay wacyigelin muuqaal wacyigelin aad sameynaysaan video wacyigelin aad duubaysaan riwaayad wacyigelin aad sameynaysaan iyagu kama hadlaan maxay ahayd ta aakhira kama hadlaan iyo qofka maxay ahayd ta aakhiradiisa wanaagsan badanaa waxay wax ku wacyigeliyaan waxa weeyaan xagga dawlad ahaan siyaasad la iskala dagaalamay waxyaabo noocaas ay ku wacyigeliyaan dhalinyaradeenna markaad badanaa eegtana xagga qaybteeda jilayaasha aan dad badan xitaa wareysto jilayaalaan wareysanay waxay ka odhanayaan nin dawladdu waa sidan dawladdan la gogoyna dawladdan la dagaalamina dawladdan jihaadka lagu jiraan fahmi waayaan marka wallahi horta way iska hawl badan tahay way jiraan waxaasi laakiin aan waxaan ugu jecelahay waxa weeyaan inaan jilo qaybta qosolka waayo aad baan qosolka u jecelahay berigaan yara waxaan daawan jiray Mr Bean markii ay riwaayadaha noqotay riwaayadina Soomaalidana Sooran iyo Joomen aad u daawan jiray ninka la Rashiid Nuur Rajabuut ka sheekooyinkiisa markuu masraxiga ku sameeyo aan aad u dhageysan jiray waxyaabo qosol badan ay xiiseyn jiray marka laga yimaado hawlahayga waxbarashada iyo kale iyo shaqada iyo waxa marka laga yimaado waxaan aad u xiiseyn jiray waxyaabaha qosolka xitaa fiidiyo comedy moolkiga iskaga buuxi jiro qosolo uun marka waxaad jeceshay in bulshada ka qoslisid taas ka jecelahay aniga daawadaashana na qosli wadda ka qosliyaa ma ihi anigu ka qosliyaa dhammaystiran ma ihi waxaana jirtay berigii dhalinyaranimada ee ciyaar xaafadkan iska odhanayaaba in marka isku yimaadaan dhalinyaradu meel kaabada fadhiistaan ama geed hoostii ama kubadda la isugu yimaado badanaa inaan iska hadlo ka qosliyo aanan xitaa oramada ku hadlaynin balse laakiin imka waxaan odhan karaa dee markii mas-uuliyadnimada meesha timaado qof weyn aad noqoto hadaladii waxyaabo badan baad ka tanaasuleysaa dacaayadii badnayd wax badan baad ka tanaasuleysaa marka hawsha waa sidaa wey aad iyo aad Suhaybo farqi intee lag baa u dhaxeeya caannimada imikooda caan tahay oo dadku ay ku garanayaan iyo markii hore farqi intee lag baa imika u dhaxeeya horta wallahi farqi aad iyo aad weyn baa u dhaxeeya markaad caan noqoto horta kow wada silaalinaysaa waxaan sharafta la yiraahdaa waa wax qof kasta uu leeyahay weeyaan laakiin sikin ku jabi karta sikin bay gabigeedu ku baabi'i kartaa say ku soo dhisantay ku soo markii hore ku soo noqotaana aad buu adag tahay waa sidii muraayad intay jabto sidii ku soo noqon weyda marka wax farqiga u dhaxeeya waa farqi aad iyo aad horta weyn haddaan sidaa maanta oo dhan hadal loo wad wax la dhameyn karaya ma aha ha tusaale ahaan bulshadaaba midhaa ku dhex tuuraya waxa weeyaa farqiga u dhaxeeya qof markii hore ku haystay waxaan waxba ahayn ayaa caan baaba noqonaysaa dhowr qof baa ku baranaya qofkii madaxa u saaran tahay waxa laga yaabaa qofkaasi markii hore waa ku yeesayay ama qofba kuma haysan walow de shakhsiyada qofkaasi ku yeesay taadna yeeso dambe ka gelin ba xogaa ma gelin isaga ku arkayso ma dambe ka gelin laakiin markaad aragtay inaad isbedesho si kala noqotay wax kala noqotay qofkii madaxa ka saaran waxa arkay isagoo aka ku salaaxay wareer dhisaatay inaga daayarta marka farqiga u dhaxeeya waxyaabahaas ka mid walow aad u badan inaan soo koobi karin aad iyo aad guddiga gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay Suhaybo halka ayaad uga mahad celin lahayd qof shakhsi dad
taageerayaal intaba horta mahad celin ummadda ilaah oo dhan baan wada mahad celinaya way wada mahadsan yihiin hooyada iyo aabahay kulli way wada mahadsan yihiin oo ummadda ilaah oo dhan baan way wada mahad celinaya kulligood horta balse laakiin markaad leedahay mahad celi ma waxaad ka wadaa shakhsiyaad gooniyo mahad celiyo wax kugu taageeray qof ma jira heerkan aad taagan tahay maanta kugu soo gacan qabtay oo is odhan kartid qofkaasi wuxuu kugu leeyahay abaal ama meel buu kuu saaran yahay horta sagalay aad iyo aad u mahadsantahay waa su-aal kaloo qiimaheeda wadata maanta ma jiro qof aan odhan karo qofkaasaa abaal igu leh qofkaasaa maxay hayday i gacan qabtay qofkaasaa wax iga taray qofkaasaa wax ii toosiyey ma jirto intaba horta aniguba isku soo waday adiguba halkaas keenay aniguba halkaas keenay odhan karaa hadal iyo dhammaanba gebigeeda markaa aada anigii daawadayaashan waxaan doonayaa inaad nagu mahad celiso afkii kale horta wallaahi waxay mahad celinaysaa kii turuukeeba si way mahad celinaysaa kulli way mahad celinaysaa annagii hitaa way isku mahad celinaysaa soo wixii garatay ma tiishaga si goslaysana way mahad celinaysaa iwaka ma wax kala hartay aada baad mahadsantahay Suhayb Sancho barnaamijka maanta marti noogu ahaa aada baan kaaga mahad celinaa Suhayb saad noogu qoslisay iyo sidaad waqtigaaga noo soo siisay waa tahay daawadayaal taas waxay nagu soo dhawaaday barnaamijkii kaftano barnaamijkii dhalin wadaag oo toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idin tegaynaa aniga iyo bahda True Cable oo isku duuban salaamullah